السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warkaygan waa degdeg. waxaan rabaa warkaygii inuu gaaro dowladda Soomaaliya sida ugu dhaqso badan. waa express. waxaan rabaa warkaygii inuu gaaro ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto. waxaan rabaa warkaygii inuu gaaro siyaasiyiinta, culamaa u diinka, ganacsatada, indheergaradka, inta cuqaal ah runtii baaqi dowladda Kenya ay ku eriday safiirkeenii Soomaaliya u joogay dalka Kenya. talaabadaas la ajligeed ayaanu soo hadlayaa. dowladda Soomaaliya inaysan furka tuurin, inaysan caroonin, inay hadalo ama talaabo ka adag midda Kenya inaysan qaadin. sababtoo ah ujeeddadaan soo hadlayo waa intaas, in jawaab celinta dowladda Soomaaliya ka imaanaysa inay ahaato mid dheelitiran, mid ku dheehan walaaltinimo, daris wanaag, saaxiibtinimo, iskaashi labada waddan ka dhexeeya, labada shacib oo isdhexgalay, daris wanaaggaas inuu ku socdo. sababtoo ah haddii sidaas aysan dhicin oo mindi kutaag ay bilaabato, waxa loo dagaalamayna ay tahay wax oo dariim ah, waa habo aan la qaban karin, aanan la arki karin, oo siday ku dhammaan doonta ilaahay og. ayadoo baasiinkaas ama batroolkaas ama gaaskaas aan weli waxba laga dheefin, haddaan anaga nag iska dhigno oo labada dalba carruurtoodii agoon aan ka dhigno, Kenya iyo Soomaaliya carruurteenii haddaan agoon ka dhigno, dhaqaaleheenii oo awalba gawaabsi ahaa haddaan runtii aan ka dhigno dalalka ugu saboolsan, haddaan ka dhigno cadowtinimada dhexdeena taal midii ugu dambaysay, oo walaaltinimadii iskaashigii intaanu sano naga dhexaysay aan ku beddelno ka fiirsasho la'aan, dagaal u ololeyn iyo wixii la mid ah, waxay la tahay in laga shalayn doono. sababtoo ah weligaaga waxaa lala degaa, gurigaad dhisanayso waxaa laga dhistaa qof jiiraan ah oo aad isku dabeecadtihiin, aad is aqoon leedihiin, oo runtii is ixtiraamaysin labadiinaba. marka jiiraanka aad iyo aad ayuu muhiimsan yahay in isku xadgudbo shalay ayaa ka dambayn doonta. marka waxaan leeyahay dowladda Soomaaliya, xukuumaddeedii, dowladda Khayre, waxaan la talinayaa talaabta ay qaadaysa inay si fiican ay ugu fikirto, talaab oo runtii tusinaysa dariiq labada dhinacba ay ku qanacsan yihiin, oo walaaltinimo ah, saaxiibtinimo ah, daris wanaag ah. talaabtaas inay ugu jawaabto dowladda Kenya, ayadoo fiirinaysa taariikhda soo jireenka ahaa ee labada dal ka dhexeeyey, qaxootigii baaxadda weyneyd ee dalka Kenya soo dhoweysay, ganacsiga Soomaalida ee Kenya, ayadoo fiirinaysa xerooyinka qaxootiga, ayadoo fiirinaysa mustaqbalka labada waddan inaysan dan u ahayn, hadda in la barakaco, hadda in burbur dhaco, hadda in carruurteennii ay agoon noqdaan. marka waxaan soo jeedin lahaa runtii Soomaali ahaan, haddaan Soomaali aan nahay, dowlad ahaan 27 sannadood, United Nationkii waddamada runtii aan saaxiib nahay ee reer Yurub waxay dhahaan waa waddamo oo feelgaroowey, dhaqaalahoodana feelgaroowey. saasoo tahayna hadday isku dhacdhacaan labadan waddan, maxkamad ayay idin sameeyeen oo ICC oo dalalka Afrikaanta ah la saaro keliya. maxkamaddaas ayaad aadi doontaan, waxaana gar heli doona ciddii ayaga ay doonaan, maana sida ciddii cadaalad leh ma aha, ciddii ayaga ay doonaan ayaa gar heli doona. marka intays arrinta meeshaas aysan gaarin, waxaan dhihi lahaa safiir la eriyey wax weyn ma aha, arrintan in si hoosaad ah lagu dhammeeyo. labada madaxweyne waa laba saaxiib,
si oo waxay ku hadli karaan oo saaxiibtinimo ah. colaadan oo holciisa dad baa ka dambeeya. batroolka hadda la sheegayana runtii waa too early in la dhaqaajo ama shirkaas la tago ama shirkaas looga hadlo, sababtoo ah soomaali management ahaan maarayn ahaan aad baan u hooseynaa. maaraynta dhinaca agricultureka iyo life stock iyo muxuu ahaay iyo serviceski iyo muxuu ahaay maxaa la dhahaa fishinki iyo waxyaabahaas horta aan kasoo dhammaano. dhaqaale inta nagu filan ilaahay uguna siiyey. waxaanu haysanaa xeeb baaxadeeda gaaraysa 3,025 kilomitr. waxaanu haysanaa dhul oo aad fertile u ah oo wixii lagu abuuray ilaahay wax ka soo saaro oo macaan. 637,655 oo square kilomitr ah ayaanu haysanaa. dhulkaas baaxadda weyn oo runtii batrool noogu qiimo badan. batroolka magacaas ayaa xoogaa waxaana la naqatay mirihii aan gacamaha ku haysan ayaan dhulka ku daadinaynaa, miro geed saaran ayaan gacanta u taaganaynaa. marka waxay la tahay si taxadira arrintan ha loo fiiriyo. waxaan la talin lahaa soomaaliya dhinaca maaraynta ka sokow siyaasiyiin calooshood u shaqaysata ah ayaa arrintan dardargelinaya oo batroolka. siyaasiyiintaas soomaaliya waxay naqatay goob dhaqaalo loo tago oo loo shaqo doonto. maanta soomaaliya ma joogto waqti hadda batrool la soo saaro. dowladda kenya xataa haddii aan xagga aan dhigno oo la yidhaha batroolkan shidaalkan ma soo saaranaa, ana waxaan dhihi lahaa waqtigiisa hadda ma aha. sababtoo anagoo dhanba weli qabyaaladii iyo musuq maasuqii iyo qabiilkii ayaa qalbiga weli ruxaaya. waxaan ilaa hadda aan dhisi la'nahay dowlad yar oo macaan oo nabad leh oo aan qabiil ku dhisnayn oo dowlad goboleed ku dhisnayn ayaan ilaa hadda la'nahay. aqliga wixii naga qaaday ma naqaan. waxa keliya aan fiirana waxaa weeyaan hebeland iyo hebeland iyo hebeland ayaan fiirinaa, iyo midabkaas oo qabiilka ah ayaan weli shaar ahaan u gashannahay. marka batroolkaas wuxuu noqonayaa khiyaameen ayuu noqonayaa. nag ayaan iskaga dhigaynaa anaga dhexdeennii, isma cafinayno. dowladda kenya ayaa marmarsiim laga dhigin. marka batroolkaas waqtigiisa lama joogo. horta dhaqaalaha hadda aanu haysano oo xoolaha iyo beeraha iyo badda aan ka soo dhammaano, maarayn fiican haddaan waxaas u soo helno, amnigii aan geed ku soo xirno oo dalkii oo soomaaliya la dhihi jiray awoodda badnayd markaanu noqono, kadib aan batroolka u soo laabano. dowladda kenya waxaana kala bixinaya markaas waxaa weeyaan waa sharci, awood sheegasho ma aha. nidaam sharcigaana kala bixinaya xuduudihii gumaysigii inoo jaray. xuduudahaas gumaysiga u noqonaynaa, ayagaa noo kala goynaya. laakiin waa waqti oo dhaqaaleeni kobcay oo runtii importigani oo aad u batay, sababtoo ah importska waddanka iyo exportska ayaa badan, deficit badanna waa ku jirnaa. lacala maalan revenuegu waddanka soo gala hadduu yahay 155 milyan ama 200 milyan, expenseska waddanka baxayaa 250 ama 300 milyan oo gaarayaa. marka taasi aan runtii aan ugu soo kobcono dhinaca maaraynta inaan xoogga saarno weeyaan. aan dalkeeni industrial ahaan wax ka furan dhan waa dhowr warshadood aan ka dhigno meel oo warshado badan oo alaabteedii dibadda loo dhoofin karo. aan ka dhigano xoolahani kuwa dibadda loo dhoofin karo ayagoo qasacadaysan iyo isagoo noolba. aan ka dhigano baddeeni muxuu ahay wixii ka soo baxa macadin iyo luulu iyo dahab iyo kalluun kuwa oo la warshadayn karo oo dibadda loo dhoofin karo. aan ka dhigano caradeeni dahab. kadib markaan ku heshiinay intaas oo dhan oo aan aragno inaan maaraynta dhinacaas aad ugu fiicannahay, dhaqaalii aan kobcinay, faqrigii aan ciribtirnay, kadib aanu soo jeysano muxuu ahay gaaskan waa cadow, yaanan isku laynin. walaalayaal waxaa idin leeyahay maanta culimaadiinka waxay ka hadlaan keliya xalaal iyo xaaraam. arrintan ayaa muhiim ah, sababtoo ah arrintan dhiig badan ayay daadin doontaa, caruur badan ayay agoonka dhigi doontaa, dhaqaalo badan ayay dhulka gelin doontaa, colaad badan ayay abuuri doontaa. culimmada waxaan la talin lahaa inay afkooda furaan oo ay ilaahay ka baqaan, oo labada dal intii hadda dowladda soomaaliya ee hadalkeedii ama codkeedii ay culeys ka dhigin, inay tallaabo oo xigmad leh inay soo diraan oo dowladda ay ugu sheegayaan muxuu ahay colaad in shalay ka dambayn doonto
wanaagana in reenreen iyo prosperity ka dambayn doono. marka waxaan dhihi lahaa siyaasiyiinta soomaaliyana oo runtii oo baasiinkaas u maleeya in ama gaaskaas u maleeya in dhaqaale laga samayn karo oo ay rabaan jeebkooda inay ku buuxsadaan, aysan dan ka lahayn agoonta iyo muxuu ahaay iyo cadowtinimada iyo baaba iyo burburka dhici doona aan dan ka lahayn. waxaan idin leeyahay allihiina ka cabsada, calaykum billaah calaykum billaah calaykum billaah ayaa idin leeyahay. markii allihiina ka cabsada, ummadda agoon ha ka dhigina, dalka burbur ha u soo jiidina, wanaag iyo walaaltinimada ha laga hormariyo iyo diris wanaagga. dowladda Kenya awaalkeeda cid ay u gudi karto male ilaah mooye. marka waxaan idin leeyahay aniga ma aha dowladda Kenya inaan wehelinayo, laakiin waxaan ogahay fidnada iyo dagaalka meesha ay gaari doonto haddaanan kala maarmaynin oo waddan jiiraan aanu nahay oo dadkeena isdhexgalay, ganacsigeena isdhexgalay. wax walba ugu horeeya waxaa weeyaan inaan mar walba wanaagga aan muujino. dowladda Soomaaliya haddaanu nahay annaga ayaa burburkeeni aad hadda u badan. nabadgelyo fiican ma haysano, dhaqaale fiican ma haysano, management fiican ma haysano, muxuu ahaay siyaasiyiin maanta oo alla ka cabsanaya ummadda u turaya ma haysano. daraad markaan Soomaaliya jiray faqriga dhulka yaalay, dadka masaakiintaana aad u sii burbureen, dadkii taajiriintaana aad u sii taajireen. waa arrin diinteena lid ku ah, ilaaha laga boqo. intaas ayaan ku soo koobayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. codkayga waxaan rajaynayaa inuu miro dhali doono oo ka talin doono wanaag u dhexeeya labada waddan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa walaalkiina aaroone. asalaamu calaykum waraxmatullaahi